wuxuu rasuulku yiri markuu tilmaamayo arbacatun fi naari sharrun min an-naari afar shay oo naarta ku sugan naarta dhamma waa ka shar badan tahay rasuulku yiri afartaas shay naarta dhamma waa ka sii shar badan yihiin midda ugu horeysa waxay noqonaysaa al-khuluud fi an-naari sharrun min an-naari naarta lagu waaraa naarta dhamma way ka sii shar badan tahay dadka ahlu naarka waxaa la leeyahay meeshiina ku waaraysin weligii damban ka bixmaysin geeridii markii intii iimaan qalbigooda ku jira naarta laga soo saaro oo jannada la geeyo oo wax ilaahay beeniyay maahan wax kale aysan naarta ku harin baa geeridii oo wan lagu soo suureeyay baa la keenayaa naarta iyo jannada dhexdeeda markaas ilaahay waxa u dhawaaqa dadka ahlu naarka yaa ahla naar ilaahay yara naarta ahlkeediyo way soo jeestaan ayagoo faraxsan oo isla nasri ay heli doonti ilaahay hadduu idin dhawaaqay nasri ay heli doonti ayagoo lay soo jeestaan faraxsan dadka ahlu jannada masana ilaahay u dhawaaqa wuxuu yiraahdaa yaa ahlal janna dadka ahlu jannada soo jeesta ayagoo tiiraanaysan waxa way soo jeestaan oo isla bay maxamed nicmada la idinka bixi doona ay soo jeestaan ilaahay markaas wuxuu yiraahdaa wankan ma taqaanin qolo walba wuxuu yiraahdaa ilaah waa naqana waa geeridii waa la gowrac meeshaas lagu bireeyaa markii la bireeyay ilaahay wuxuu yiraahdaa yaa ahlal jannati khuludun bila mawt waxa idin sugnaaday ahlu janno waaritaan aadna ka dhimanaynin weligii jannada waa ku waarisin weligii ka dhimaysid farax hadii loo dhinto dadka ahlu jannada u dhima lahaayeen markii ilaahay uu yiraahdo jannada ku waarisin weligii damban ka bixmaysid ويا أهل النار خلود بلا موت إلى هي هذا تذكر أهل النار كودين كانوا حيدين سونا وارتان نار تأكو وارسين ولي جدا من أن كبحينين هدين نحتين لورد أنت تذكر أهل النار كقدم على هايل نحتين مركز مركي إلى هي ولي جرا كو وارسين كانوا بيحمسين وينحايا مركا نار تلقوا وارا عذابك ويكسي شربانته وارتان كنار تلقوا وارا هي عذابك ويكسي دبدية مد الله بضحي نغنسا وطوبيخ الملائكة في النار شر من النار malaa'igta haydaartadeeda iyo xaarxaaradeeda oo dadka ahlu naarka ay xaarxaaranayaan cadaabka waa uga dhibaday cadaabkay ku sugan yihiin malaa'igta xaarxaaradeeda iyo awad si dhibaato badan midda saddexaad waxay noqonaysaa oo naarta dhan ka shar badan wajiwaaru shaydaan fi naari sharrun min an-naari rasuulku yiri shaydaanka lala darso oo naarta lagu la darsaa naarta dhan waa ka sii shar badanta shaydaankay ku duufsaday adiga isku silsilada la ku xiraaya shaydaankii kulmiye adduunka markaa joogtay iyo adiga isku silsilada la ku xiraaya isku meel naarta la kaga ridaya wax la daris la noqdo oo la rafiiqo shaydaan kaliita ma jira marka shaydaanka darisna la noqdo naarta waa ka sii dhibadan yahay saa shaydaan oo waxa ilaahay beeniyay uu dambi badan rafiiq lagaaga dhig oo isku silsilada la ku xir midda afar waxay noqonaysaa waqadabullaahi fi an-naari sharrun min an-naari ilaahay caradiisa oo dadka ahlu naarka uu careysay naarta waa ka sii sharbaanta dadka ahlu naarka ilaahay uu careysay marka carada ilaahay naarta dhamma waa ka sii sharbaanta waa ka liidata qof ilaahay uu careysay yahay wax ka liita lama arko ilaahay baa ka maangala